Eventually, the formation of the district school it was begun in 1994 for the first time. munaasabadan sida weyn loo soo agaasimay waxa lagu xirayay sanad dugsiyeedka 2012 ilaa 2013 ee dugsiga hoose dhexe ee Umar bin Khadaab ee ku yaala gudaha magaalada Boorama waxaana ka soo qayb galay qaar kamid ah mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Boorama saraakiil ka socotay gudoonka waxbarashada ee gobolka waalidiin arday macallimiin iyo marti sharaf aad u fara badan waxaana ugu horeen munaasabadan ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Umar bin Khadaab mudane Cabdiwahaab Cabdilaahi Aadan Boos wuxuuna ka sheekay marxaladii kala duwanaa oo dugsigan soo maray waxaan markii ugu horeysay aan bilownay sanadkii 1994 markaasoo ku bilownay tiro aad u yar fasalladuna kuwa aad iyo aad u liita ay ahaayeen ilaahayna haddii marxalado kala duwan ayuu dugsigan soo maray oo aad u fara badan iminkana waxaa marayaa heerkii ugu wanaagsanaa ayuu maraya marka ardayda kaalmaha koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad fasal waliba ku guulaysatay inaanu abaalmarin siino si ay marka ardayda kalena ay ku yeelaan waxbarashadiina ay u yeelato waa taas marka ujeedada xafladda aan u samaynay sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Boorama mudane Maxamed Faarax Dheereste gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Eelo Professor Qadar Cabdi Qayre qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama saraakiil ka socotay gudoonka waxbarashada ee gobolkan waalidiin iyo arday waxaana hadaladooda kamid ahaa وأنا أتفضل حقوقنا وعين لبض القرية كسر شيء ما كيكون بلاويه. مسلمات وحوي ومالين قيمة ومالين قف صوم يعطيني وكان خلاص ومالين عيد كسابة وتبني شيء صار حفلة ملايين رمضان. كنت أنا وحنت على الطريق مركز صوت علي وحنا أدو في السنة أرضيها وحنا أدو فرحية وأدو داية هذا نفس الأيمان الطريق. نظام عليه أو فرعيان. كان مالك يجمع له فتاة استشران ويقف روح ونقول يا أرض هياكل لكن يقف معلم كل يوم دايو أنه والد كل يوم دايو وما هذا نتيجة ولا صوت صباح. وأصل أرضي وصل تمام أيام والدين تنوط تمام. إنها والد في سقطهم بيا كل يوم ذكرنا إنه حتى يومنا سيهي إنها أنا والد في سطوعي مركا والد وأنا خايا إن ilmaha mar walba dawladda waxbarashada la dabasho oo la xisaabiyo si kastaba aatee dugsigan oo kamid ah dugsiyada ugu tayada wanaagsan dhinaca waxbarashada ee gobolkan ayaa maamulka dugsigan waxa uu sanadkan ku guuleystay inuu hirgeliyo bilowga waxbarashada dugsiga sare taas oo dhameystir u noqon doonta guud ahaan waxbarashada hoose أما كلمة المعلمين فهي شكر وتقدير أما الوالدين فهي دعاء وتوقير عبد الفتاح أحمد هالوناج نيوز مقالة بورما